الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa caawa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dawlad goboleedka Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Ingiriiska ay caawa halkan ku dhigayaan baroordiiq tacsi ay kaga xun yihiin dadkii Soomaaliyeed ee ku baaba'ay ee ku halaagsamay 14 bishan wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dadkaas oo gacanka xaq darani ay ku dishay dalkooda dadkoodiina ay dadkaan yihiin tiiraanyadiina caawa adduunyada daafaheeda ay ka tabinayaan dadka Soomaaliyeed Faadumo Axmed oo ku hadlaysa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada dadkii hawshan quruxda badan u istaagay oo u dhabar adeegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وأنا السلامة dadweynaha Soomaaliyeed qaasatan waxaan salaamayaa reer Galmudug iyo jaaliyadaha kale oo noo yimaaday jaaliyada Jubbaland jaaliyada Galmudug ee Puntland dhammaantiin iyo jaaliyadaha kale oo ulaawan iga raali ahaada waa markii ugu horeysay oo aan ka hadlo microphone waxaan leeyahay soo dhawaada idinkoo dhan arjantaha aan u sameeyay waxay ahayd markii hore taageeraha madaxweynaha Galmudug State Axmed Ducaale Geelle Xaaf kadibna waxaana soo gashay tacsi wa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dad aad iyo aad noogu qaaliyaha dhintay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo intii dhimatay intii jirana waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu qaadir ah wada caafiyo waxa weeyaan qaasatan reer Galmudug State waxaan leeyahay wa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan walaalayaal waad mahadsantihiin inaan noo timaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto tacsiba caawa noo taala ma xafladeyn karno waxaan raahada ku soo dhaweynaa gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug wadankan Maxamed Ciise Jaamac Jilibay inuu halkan ku soo dhawaado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa halkan isku nimi waa tacsi xambaarsan tiiraanyo iyo culays 14kii bishii tobnaad 2017 waxa magaalada Muqdisho lagu xasuuqay lagu gumaaday lagu laayay lagu baabi'iyay hanti ku waayay naf ku waayay Soomaali oo idil waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto kitaabkooda midigta ka siiyo intii dhaawacantay Ilaahay ha u boogadhayo Ilaahay ha ladnaysiiyo inta ku hanti weyday ee ku awlaad weyday samir degdeg oo sariic Ilaahay siiyo waxaan sidaas leeg aan caawa uga faa'iideysanay jaaniskan walaalihii sharafka lahaa ee u soo gurmaday annagoo halkan joogna inooga naxdin badnaa inooga tiiraanyo badnaa inooga culays badnaa waa walaalaha aan la ilaabi karin waa wadanka Turkiga wadanka Djibouti labadaas madaxweyne iyo wadamada kale ayagana waxaan leenahay abaalkaas Ilaahay baa idin haya annaguna waa idin hayna walaalayaal calaamadan madaxa ku sidataan ee casaanka ama guduudka waxay ka turjumaysaa anigu waxaan u xiran waayay xisaab baan rabaa xisaab aan la xisaabtamayo madaxdii wadanka mas'uulka ka ahayd ayaan waxaan ka rabnaa xisaab waxa dhacday 10 cisho ka hor shilkii ka horeeyay wiil baa ku dhintay ay dhashay marwadii hooyooyinka wiilkeedaas markuu dhintay waxa ku shaqo waayay mas'uuliyiin badan waxa halkan ku dhintay ummad aan la xisaabi karin aan la cadeyn karin aan laga sheekan karin ma hayno qof laga la xisaabtamay qof iska weydiiyay 10 cisho 5 cisho 9 cisho 15 cisho kadib waa laga gudbayaa ma ka gudbi doono mana ilaabi doono taalaan u dhisi doonaa aan kula xisaabtanno xasuuqaas Hiroshimadaas nuclearkaas lagu garaacay waxa afka loo marmarinayaa inay ahayd Al-Shabaab no way Al-Shabaab ma ahayn Al-Shabaab wuxuu ahaan jiray wiil suun yar soo xirta oo halkaas laba go kala noqda waa garan karnay numberka Al-Shabaab ahaan jiray dhiga wixii halka ka dhacay waxay u dhigantaa 1982gii
midii Libnaan ka dhacdo kale taariikhda dib ha loogu laabto waan ogaan doonaa kana harimayno waxaan ku tala jirnaa hadday Soomaali noqoto iyo hadday indhaha adduunka noqoto inaan dacwadaas wadi doono adink wixii ama qalaya qurba joogta gudaha meel kasta waxaan farayaa aan u istaagno yatiintii hooyooyinkii dadkii lagu xasuuqay wixii ka nabad ka haray badbaadadooda yaanan ku halaynin dawladda yaanan ku halaynin qof kale qof kasto sidaad mayraxda gudaha madaxa ku xiratay ugu istaag jeebkaaga inaad u fangarayso oo aad u caawiso dadkii dhibaatada ku dhacday anu yaro General Abdi Ali dhaxe meeshaan nimida waxaan muujinaynaa baroordiiqda ma ahe isaga midna waa nahay hadalkuna isku mid buu noqonayaa qofka bilaabo iyo qofka ugu dambeeyo sababtu waxa weeye waa hal meel hadal ku wada socda weey waxaan rabnaa inaan muujino dareenka iyaga aan la qaybsano dadkii aafadu ku dhacday dhibaatada loo geystay ee la xasuuqay inaan marka hore u ducayno oo aan iraahno intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay caafiyo subhanahu wa ta'ala intii dhimatay ajashooda inta ku ekay cid soo dadin karta ma jirto saacada uu dhimanayo qof walba way qorantahay dibna looma dhigi karo lamana soo hormarin karo gacan xaq daran baana dishay markii inta laga tago waxaan leeyahay dhibaato badan Soomaaliya way ku dhacday khaasatan Muqdisho dhibaato badan baa ku dhacay marka waxaad moodaa in hadda madaxa kor loo qaaday wax badan oo dadku ay xeerinayeen oo aha qof aan la aqoon ma jirto oo magaalada joogo qof aan la garan karin ma jiro waxa weeye waxaan isleeyahay xoogaa waxaa jiray dabacsanaan badan baa jirtay laakiin arintaas in laga gudbo doono insha Allah ta'ala waxa kaloo jiray in xoogaa Soomaalidu dhan ay kala daadsaneed ayadana xaqaas inaan midnimo ka heli doono insha Allah ta'ala aan midowno qolada dhagarta geysatay waxaan isleeyahay way fara badan yihiin mid fuliyay mid talada lahaa mid dhaqaalaha lahaa mid soo kalkaalay mid muxuu ahaa soo horseeday intuu waxaan isleeyahay haddii raadkooda la qaado waa la heli karaa laakiin waxay u baahan tahay dadkii raadkooda qaadi lahaa waana rajaynayaa insha Allah ta'ala nagaraqabayaashaas in la heli doono Firdawsa Bile ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka maanta kulay mikrofoonka waxaan u qabsaday waa murugo oo meeshan u soo istaagay ilaahay waxaan uga baryayaa intii dhimatay naxariistii janno ilaahay inuu ka waraabiyo intii dhaawacantayna ilaahay inuu boogadhayo waxaan leeyahay maanta waxa nagu dhacay waa masiibo qaran ayaa maanta nagu dhacday ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsada maanta midda Muqdisho ka dhacday nin walba gurigiisa ay ugu imaanaysaa Muqdisho lama dhalan dhibaatada lama dhalan Muqdisho goonina uma yeelan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalayaal intaas ka badan ma hadli karo ummadeena dhimatay ilaahay ha u naxariisto dawladda Soomaaliyeed kulleeyde dhibaatadan maanta dhacday waxaan uga jeednaa mid ayada xaggeeda habaacsanaan ka timid inay tahay dhibaatada maanta dadka iyaga ku dhacday cid loo soo qabtay ilaa hadda maanta ma jirto ilaa ay hadda wax waray nala wadaagtay dawladda Soomaaliyeed dhibaatadan dhacday ma jirto marka maxaan dhihi karnaa dalku dawlad ma lahan miya maxay noola wadaagi laayihiin wixii dhacay wax yar maxaa noogula muujin waay waxa la yiri maalin walba wixii dhacay shabaab baa sameeyay shabaab midan tiisi maahan waan u jeednaa waa calaamad ka weyn dawladda shisheeye iyo gacan anigu aan leeyahay ha ahaatee marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya fariin u farayaa cod dheer ku farayaa waxaan u baahanahay dadka yagii wixii qaribaan u baahanahay Ismaan Cabdiraagi Xooshow wakiilka dawlad goboleedka Galmudug ee wadanka UK inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
indhuhu waa ilmeynayaan qalbigu waa murugoonaya mana dhahayno waxaan ilaahay usraale ka hayn subxaana wa tacaala waxaan tacsi usoo jeedaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska ay ka baxeen intii dhaawacana waxaan ilaahay uga baryaa subxaana wa tacaala shifaan caajilan iyo dembi dhaaf biidnillahi alkariim intaas kadib waxaan rabaa inaan wax yar aan sheegay inay dul qaadataan mudaaharaadka oo ka dhacay muqdisho oo ay qabanqaabinayaan qaybo ka mid ah dawladda ama macnaha mudaaharaad waxa la dhaho inaan wax yar dul istaago markaan meelahan joogno haddii traffic wax ka dhaco ama jidka qof lagu dilo waxay xiran tahay dhowr maalmood ama dhowr saacadood ugu yaraan mudaaharaadkan iyo meesha oo lagu qaaday rushayn iyo nadiifin waxaan u arkaa inay tahay nabi baabah iyo raatirasho dawlad tii mudaaharaadaysa ma aha mudaaharaadka waa nooc lagu soo bandhigo dadka waxa ka maqan dadka markay caburmaan dareenkooda waxay ku cabiraan waay waxaana loogu mudaaharaadaa dad qawaaniinta dawliga oo qabanayo oo la yaqaan shabaab iyo dad aan qawaaniin aqoonin looma mudaaharaadi karo lagumana mudaaharaadi karo laana ma yaqaanaan mudaaharaad waxa laga yaabaa inta la mudaaharaada inay laayaan dad kale oo badan meel looga dacwoodana ma laha marka dawladaha lagu mudaaharaada dawlad mudaaharaadaysa halkee lagu arkay dawladdu waxaa laga rabaa xisaabtan dawladdu waxaa laga rabaa meeshaas wax ka dhaceen inay dad khubaraa u dirto oo la ogaado waxaan dhacay waxa ay la eegin xajmigiisa iyo meesha uu ka yimid lana baaro muddan ay xirnaatay iyo maalmo marka in la nadiifiyo oo biyo lagu rusheeyo oo madaxyada calamo guduud lagu soo xirto oo jidka la marmaro aniga waxaan u arkaa inay tahay nabi baabaha iyo in la duudsiyo xaqeeni iyo dadkeeni dhiigiisi wax loo dul qaadan karana ma aha wax loo dul qaadan karana ma aha mana ka yeeleen waxaan ma aha natural disaster dhacay ma aha musiibo hurricane dhacday ma aha madaxweyne oo marka hotline joogo loogama baahno oo telefoon qabanayo oo gurmad raadinayo maya ma aha natural disaster ma aha madaxweyne iyo dawladba waxaa laga rabaa xisaabtan waxaan yaa sameeyay maxay u dhaceen saynan mar kale u soo noqonin arrimahaas in laga hadlo oo dagaal loo istaago Engineer Janune, welcome to the mic, please. راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ليال وحنا سوون نمد عاوة بعد السلام جود وحنا سوون نمد إن كثيرا يونو ونكتعسينو مصيبة ذي كذا عذي مقالة ذا مقدشو أفريا طبنك بشان سبتي هوري أرنتاس أيضا ووذا أجنهي waxay ahayd arrin aad iyo aad ama kaag u noqotay arrin ku cusub geyiga Soomaaliyeed ama gaar ahaan ha noqoto ama guud ahaan adduunkaba dhibkaas dhacay iyo dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay intii dhimatayna Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo intaasaan leenahay waxaan leeyahay oo kale anaga waxaan u malaynayaa haddaan khaldanayn caawo kale waxaan u ballansanayn barnaamij guud oo ku sababsan state-ka galmudug state la yiraahdo iyo taageeradiisa presidentaha Mr. Xaaf hadda musiibo haday dhacdo dadkii majaraha noo hayay way fikireen taas dibay u dhigeen waxa soo hormartay musiibadan inaan isaga tacsiyeyno naftayna uga tacsiyeyno ehelkii iyo guud ahaan Soomaalida aan uga tacsiyeyno waxaan ognahay caawa meelo badan oo sidaan oo kale ay ka dhacaysaa jirta hadda waxaan nahay dad kamid ah ama jasad kamid ah sida hadii walaalkay iga horeeyay uu sheegay wakiilka yani dadkii ka xanuunsan lahay baan nahay dadkii ka xanuunsan lahay ayaan nahay waan ka xanuunsanay waan ilmeynaynay maalmahan oo dhan inaan laba kalmo inaan si wajiga isu dhahno oo ayagana u duceyno intaasay ahayd caawa waxa intaas dheer baaqa la jeedinayo guud ahaan iyo habacsanaanta ka muuqata nidaamkeena systemkeena dawliga ee systemka Soomaaliyeed aad iyo aad anagoo awalba u dhaliilaynay oo maalmahan oo dhan ama bilahan oo dhan lahayn yani tiirarkii ay ku taagneed dawladdu oo state-yada ahaa ayay u soo dhigatay inay baabi'iso ayaan maalmahan oo dhan ama bilahan oo dhan la amakaagsanayn
waa ii soo socdaan jaaliyadaha puntland iyo jaaliyadaha jubbaland laakiin waxaa khadka taleefonka iigu jira madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed geelle xaaf dee wixii dhacay waa ognahay waa ka wada kunahay ilaahay ha u naxariistiintii dhimatay oo kuwii dhacmay oo xooluhu ka baaba'een la yidhaaho has iyo xoolo kaloo ka sahlan kuwa dhaawacana ilaahay maaragtay caafimaad ha siiyo waxaan idinka rabaa idinka waxba ha samaynina shirada iyo xaflad toona ma banaana waxaa loo baahan yahay maanta dadkii dhaawacmay iyo kuwii dhintay iyo ayaa loo baahan yahay in gacan la siiyo waxaa loo baahan yahay in dadkii taakulayn loo diro annaga lafteedu waa iska liidanaayo ciidankii waxba waa sii laana laakiin hadda adinka maanta waxay warsan mayne dee intaas midaas waa midda kale jariyadii saaka warka qortay jariyadaas inta loo yar u qabataa warkaan meesha ka keentay baa la rabaa idinkoo sheegaya dadka dhintay iyo kuwa qaraxa ku dhintay baa hadday qabiil tahay waa isku qabiil waa isku famil marka midaan waa mid qaanoo Soomaaliya Soomaalida kama suurta gasho dalka bariga lagu laayayna ma ahan shabaab dee adinka ayaa la rabaa jariyada Guardian in war laga keeno wixii warka siisay la ogaadaa la rabaa xildhibaan maxamed cabdi shiike oo ah wakiilka puntland isla markaas annaga mas'uuliyaddu maxay tahay ma inaanu halkan ka barordiiqno oo inta ku ekaano mise waa inaanu ku darnaa ficil aan ugu gurmanayno dadka yagi kulli aniga ahaan anoo ku hadlaya magaca golaha wakiilada puntland anu xildhibaan baan ahay wakiilka mayahay puntland wakiiladooda waa joogaan waxaan ka mid ahaa dadkii ka shaqaynayay nabadii galmudug puntland dadkii ka shaqeeyay in dadka walaalaha ahaa oo dhibaatadu haysatay in ay biyihii wada cabaan oo daaqsintii wada daaqaan si nabada dad ka shaqaynayaan ahaa barqaatigeedana waa joogaan marka maantayto anoo arka meydka ii yaala haddii aan waxyaaba jifa jiriqa ku laalaabto waxa weeye mas'uuliyadda waxu dhimi calanka buluugga aan wada huwanahay xil inagoo dhan buu naga saaran yahay in aanu banaadir wixii ka dhacay ay noqoto waxa saldhig u noqonaya Soomaaliya midda isku raaci lahayd inay noqoto hadday noqon weydo hadda waxaan isugu imaanayno macnaha walaaho baan ku jirayna waxaan mar labaad adkaynayaa jaaliyadaha yar haddana kootada dumarka shukri jaamac nuur uma malaynayo reer Soomaaliya oo halkaas maanta ka maqan oo leeyahay qoladaas dhimatay qoladaas nool inay jidho dadku ma kala soconayno dad wada marahaya iyo dad dukaama haysta iyo dad baabuur wata iyo dad ummad waxa weeye nuclear ku dhacay weeye ummad nuclear ku dhacayna qaar macnaha ma kala socona ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto nabigoodina allah ku bashiro ilaahayna ha u naxariisto horta sidaas aan ugu ducaynayaa ummadayadii dhimatay intii dhimatayna allah u naxariisto inta noolna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u boogadhayo caafimaad degdeg allah siiyo aad iyo aad waxaan rabnaa inaan ugu mahad celiyo ilaahay baa mahadda iska leh ummadii noo soo gurmatay gaal iyo muslimba waana loo soo gurmaday special turkiga puntland ما شاء الله غير إلهي السيو ما أنت واحد داون هيا مع قبله هذه الناس كهينة صادرين دعوة كينين جبوتي سيدو كليتو تركو جوا يمد محن كويرا هذا لو ما كله هرين سومالي يو قال يا مسلم بوال يمد إلهي سبحانه وتعالى أشري حسنات الله كسيو سواء حلو وحيرا دام سيو ماتش دي جوبيا معهن وحويان سومالي نمدو إيس ما وحويان وأنا حيسا وأنا نور على الله عيسى مركز وحسركتيد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كل إيران مهيو هذا الكا وحلا وحي حكمت كساب سنة برديق ذا وحاكها الله صاحب ذي يجوه ريي بعد ميي وقتك حتى ليسيه كير بهربائنا نضيع الله ما كوسو تشديه وحي أنا جاي قلق ومن برديغدن
waxaan marka hore u tacsiyeynayaa si guud iyo si gaaraba dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee ku dhacday halaaga iyo balaayada aan caawa laga sheekeyn karin ee reer Muqdisho baan halkan caawa uga tacsiyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay naxariis jirna ilaahay ha ka waraabiyo intii dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha uga bogodhayo inta markaan ka gudbo waxaan halkan uga mahadnaqayaa jaaliyadda Galmudug ee soo qaban qaabisay munaasabadan barardiiqa ah ee aadka u quruxda badan ee nagu casuuntay inaan kala qayb qaadano iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waadna ku mahadsantihiin barardiiqa muxuu ahaa u samayseen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada London waxa kale oo aan iyadana u mahadnaqayaa dawladihii ka qayb qaatay muxuu ahaa daaweynta iyo xanaanaynta dadka dhaawaca ee wax ku yeeloodeen muxuu ahaa magaalada Muqdisho oo ay ugu horeyso dawladda Turkiga iyo wixii la midka ah waxaan iyagana leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad noo garab istaagteen Soomaaliyana waxa ay loobi doonto ma noqon doonto dawladaha garab istaagay waxaan halkan fariin uga farayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ma aha UK oo kaliya ma aha arintani ma aha wax ka dhacay Muqdisho kaliya ma aha waa wax ka dhacay 18 gobol ee Soomaaliya ay ka koobanta haddii aan doonayno masiibadaas in laga hortago haddii aan doonayno inaan garab istaagno inaysan mar dambe dhicin arintan oo kale haddii aan doonayno in dadkii naftooda ku waayay maalkooda ku waayay hantidooda ku waayay caafimaadkooda ku waayay haddii aan doonayno inaan garab istaagno waxa la inaga rabaa waxay dhahaan fundraising inaan u samayno funding inaan u samayno qof kasta oo Soomaaliya oo maanta ku nool UK ama ku nool muxuu ahaa qaaradaha intooda kale UK example 10 pound qof kasta caawa haddii uu dhiibo ama hawsha ayada loo istaago waxaan dhihi karaa waxay recovery ku samayn karaan wax alla wixii hanti meesha ku luntay wax alla wixii ma garanaysa dad ay ku dhaawacmay bay hawshaas ku fargarayn kartaa marka waxaan idinka codsanayaa dhammaan jaaliyadda caawa halkaan noo dhigtay muxuu ahaa arintan iyada jaaliyadaha kale ee ka soo qayb galay iyo kuwa kale ee maqanba in arinta ayada loo istaago in dhaqaale degdeg ah loo ururiyo dadkii ay hawsha ayada ay wax ku yeeloobay mudane Cabdirashiid Jubaland هذا الإمام كم جرى هذا إسماعيل حسين جدي please welcome to the mic barordiiqda waxaan la qabaa dadkii hore xanuunka waxaan la qabaa dadkii hore waxaan ku saaidinahayo saaida ma jiraan laakiin waana wada sugaysaa haddaan gacnaha isqabsan oo aan ka hortagin qodobkaas waxaan uga baxayaa arinta ku saabsan nuclearkii ama C4 baa la yiraahdaa bombada meesha ku dhacday dadku hadii ogyihiin hadaysan ogeynba waxa loogu talagalay kaara haday ku dhacdo xataa inay 20 mitir kor u boodo kaligiis marka waa bahal loogu talagalay arintan ayada ah laakiin ma ka hordagayno dawlad baa joogta dawladii aan dooranay oo anagu aanu haysanay in doorasho ku timid laakiin aad moodida inqilaab dalkii ku qabsatay marka waxaan rabnaa inaan ogaano oo maanta isweydiino barordiiqda maamulba kuma jiri karnee dawladdu dastuuri haday tahay oo dastuur lagu doortay hadda madaxweynaha Galmudugna dastuur baa lagu doortay laakiin haddii uusan asagu dastuuri ahayn oo uu rabo dawlad inqilaab dhaqankeedii la inuu la soo baxo dawladda waxaan ognahay labadii bilood oo u dambeysay qalad kasto ay gasho inuu yahay mid aan ka samri karin haddaan Soomaalinahay waa dooranay waa jaclayn waa u ooynay arfarmaajo ii geeyaan niri arnugu ceyriyaan niri ma garatay marka hadda waxay maraysaa war naga soo ceyriya bahalkii naga soo ceyriya reer Galmudug baan tilmaamaha ay leeyihiin reer Galmudug waa geesina nabadna waa yaqaan colaadna waa yaqaana golo colaadeedna gaashaanku ugama dhaco ninka geesiga haddaad la fariisatid waa kula hadlayo wuxuu ku leeyahay halkaana waa saan laakiin haddaad maalin walba inta la isku tago la yiraahdo war reer Galmudug kaliya baa inkaar qaba waaya war hadday inkaar qabaan shalay wixii ku dhacay ilaahaygi badbaadiyay intii noolayd intii dambana gurmad ilaahay keenay diyaaraduhu waa isdaba socdaan gurmadku waa isdaba taagan yahay meel walba waa laga cabaaday waa dad ilaahay jecel yahay ummadda markii ilaahay jecel yahayna waxba u caynsama annaga marka waxaana la ka rabaa Galmudug dad badan baa u soo dhintay dad badan baa ku xoolo beelay dad badan baa muddo badan habeen madow guureeyay waxaan joognaa xafladii barordiiqdii arintii sooba ka dhacday xanuunka badneed geerida badneyd jaaliyada Galmudug dhamaanteed UK soo qaban qaabisay
waxaan leenahay intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawacana allah caafiyo geeri xanuun badan bay ahayd waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay arrintaas baarto oo ay ku sii dhiirato oo ay maaragtay aad ay u baarto wixii ka dambeeyay 300 oo qofood oo dhimatay ilaa 500 oo dhaawac wax maaragtay xanuun badan weey aad u xanuun badan marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka inay aad u baarto hadduu alla idmo waxaan ka codsanaynaa inay aad u baarto dowladda arrinta ay kula jirto galmudugna dowladda federaalka waa inay gacmaha kala baxdaa hadduu alla idmo ay faraha ka qaadaa si maaragtay dowladda galmudug aan loo furfurayn maaragtay madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle Xaaf si maaragtay uu hawshiisa u sii wato insha Allah taala aad baan maaragtay ka codsanayaa TV kalsan aad baan uga mahad celinayaa taankiyo baan leeyahay shaqaalaha iyo madaxda kalsan TV ummadda Soomaaliyeed ee sharafta badan ee caawa halkaan isugu timid ee ay aad uga dhex muuqdeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Galmudug barnaamijkii baroordiiqda ahaa ee caawa aad ka soo qayb gasheen aad iyo aad ugu mahadsantiin intaas ayaa xafladdu noogu eg tahay